waxaan kaloo idin bishaaraynaynaa ciidamo kale oo xoog leh oo hubaysan oo Soomaaliyeed oo tababar qaba oo culayskii idin la qaybsanahay inay noo yimaadeen hallo saaxiibo ciidamo tababaran oo walaalihiina oo aad ogeydeen oo kuwii naga maqnaa ah maanta xooggoodii Soomaaliya ku sugan yahay adinka idin garab galahayaan dagaalkay wax ka galahayaan waxa la soo baray sida cadawga loo cirib tiro sida adinku hore leeyahay kugu soo baray waana mar dhawna insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaanu qorsheynaynaa sida ay uga qayb qaadan lahaayeen hawsha socota haddii shalay marna xagga la idin diray marna gees la idin diray maanta ciidan baad haysataan Soomaaliyeed oo ku filan inuu cirib tiro khawaarijta waxaan ogahay raggan waa dhalinyaro anoo odayahaaba joogsan waayo xamar telefoon la iga soo diray ayaa la leeyahay intaas oo cashaad maqaltay soo laabo adinka maxaad u maleynaysaan adinkoo dhalinyaro ah waa ogahay adinkana in soo laabada la idinku hayo iyo hawlgalkan madaxdan inka arqabtooda hawlgalka faraha badan idin diraysa muxuu yahay in la idin leeyahay waa oga laakiin nin walbow waxaaga cisho inta aan Soomaali ka xoreynayna insha Allah wax xoreynayna ninka la yiraahdo dayax wuxuu yiri aniga halkaas gabar la iga siinaya wuxuu raamidayda inuu igu qabsado marka insha Allah waa guuleysanaynaa biidnillaahi alkariim waxa soo hara wixii wax hadda halkaan aan laga sheegayn taliyaasha noo sheegay waad garan kartaan Soomahan taliyaasha noo sheegay safarkii hore nimid baa la ii sheegay taliyaasha iyo saraakiisha taliya xoogana waa kan amarna waa laga baxshay dagaalkaas nin walba qaybtiisa intuu ka qaatay baanu mustaqbalkiisa socodsiinaynaa maanta taliyaheena waa taliya odawaa anigoo taliya ciidan dhul baana odawaa waaba iga dhalinyar yahay anuu mar dhow retire baan u socdaa inaan iska nasto ragga i bedeli lahaa waa raggan waana gaarsiinaynaa ninkii soconayo waa gaarsiinaynaa inuu taliya ciidan dhul noqdo inuu taliya qayb noqdo inuu taliya urur noqdo inuu taliya hori noqdo inuu taliya guuta noqdo waa gaarsiinaynaa nin aan haba yaraatee aan ka xasdaynaa ma jira wuxuu keensado waa ka taliya xooga maanta nin walba adigu soco waxbaro isku wad markii dagaalka laga baxo waxbarasho ciidan iyo mid maadi iyo akhlaaqdaada inaad dhisto adigu isdhis dagaalkana qayb ka qaado annagu ku hakran mayno waa ballan ilaah inaan nin hakran adigu hays hakran jaad ha aadin darooga ha aadin waxaan waxba kugu tarayn ha aadin adigu lafahaaga isdhis adigu haddaad inta isdhisto yaa annaguna kula garab galaynaa insha Allah biidnillaahi alkariim taliya urradii waa maqlahayaan taliya guutayaalka waa maqlahayaan nin aanu hoos u celinayno asagoo kor u socda lama arko waxaan ilaahay ka rajaynaynaa kuwa dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfacay in ilaahay idinka dhigo waana tihiin waxaan ilaahay ka baryaynaa annagoo nabad qabna cadawgana burburinay goobahaan ahay inaan ku dardaaranno oon isugu nimaadno insha Allah haddii ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaad u adkaysataan oo ogaa halkaan waad seexateen xalay iyo afar casho shan casho waa aragteen qabowga idin soo dhacaya habeenkii u adkaysta waa dalkiinni anuu waa ka helayaa dhulka quruxda badan ilaahayna siiyey markaad aragto dhulka Soomaaliya meel walba meesha kale waa ka qurux badanta waxaad leedahay tan maxay waad ogeyda guulana sida u qurux badnayd iyo alfurqaan iyo dhulkii aan maalinta shiqdi aan idin kugu imaanahay dhulka kale waa ka macaan yahay dhulkaana wax loo ogolaadaa in balaaya ku fariisato wax loo ogolaan kara wallahi inuusan ahayn marka hadalka ma dheeraynayo taliya xooga iga dambeynaa rabaa inaan ku soo dhawaado taliya ku soo dhawow dardaarankaagii iyo taladaadii iyo waajibaadkaaga ciidankan iyo annaga guud ahaanba saraakiisha diyaar baan u nahay inaan fulino haddii Ilaahay yiraahdo